ugu muhiimsan oo aad iyo aad dhiigkarka iyo xaaladaadka wadnaha aad iyo aad qofka ugu muhiima sidoo kale macaankana aad iyo aad ugu fiican haddaba qaybtan dhiigkarka wasayniga muuqato waxay ka kooban yihiin shantaa shay amba afartaa shay ayay ka kooban yihiin tan waxa weeyaan waa Arctic Sea oo aad iyo wax laga sameeyay saliidii kalluunka waana omega 3 weeyaan Arctic Sea-dan waxay aad iyo aad ugu fiican tahay saddex meelood maskaxda oo aad iyo aad ay ugu fiican tahay xididada galaya iyo nafaqeynta maskaxda wadnaha iyo sidoo kale indhaha ay aad ugu fiican tahay cholesterol hoos baa u dhigtaa qaybtan labaad waxa la yiraahdaa garlic and thyme wuxuu ka samaysan yahay toontana waxaynu ogsoonahay caafimaadka ay bulshada iyo caafimaadka ay dadkaba u leedahay marka iyaduna cholesterol iyo waxyaabaadkaas iyo halka wadnaha ay aad iyo aad wax badan ka qabataa tan waa dacartii oo sharaaba waa aloe vera gel waxa iyaduna u fiican tahay qashin saare guud weeyaan sidoo kale xididada ay aad ugu fiican tahay oo mar walo waxay samayso inay jirkii macdantii dhanaanka ahayd ee jirkeena ku badan markuu qofku siiba dhiigkarka leeyahay inay hoos u dhigto taasina ay keento inuu xaaladii dhiigu uu dego iniga dambe waxa weeyaan waa Arctic Plus-na iyaduna waa sharaab la qasanayo uu wanaagsan laba meelood bay aad ugu fiican tahay siiba saddex meelood waxay u wanaagsan tahay wadnaha iyo xididada sidoo kale muruqyadana waa u fiican tahay marka xididada waxay sameeyeen inay balbalaadhaan xididadu caadi dhiig u mari karo wadnuhuna shaqadiisa si fiican u qabsan karo Arctic Sea-dan habeenkii aroortii qofku xabad buu laba midh buu qaadanayaa tanna xabad buu qaadanayaa garlic and thyme-ka tan 60 ml buu qaadanayaa cuntada ka hor tanna xabad buu maalintii ku filan inuu qasto oo laba waqti lama qaadanay xabad baa la qasanaya intaas insha Allah hab dabiici ah hadduu macaan qofku leeyahay iyo hadduu dhiigkar leeyahay cholesterol hoos baa u dhigaan wadnihii kacay iyo dhiigkarkii badnaana hoos baa u dhigayaan oo aad iyo aad ma kacayo aad baan nii soo dhaweynaynaa markasta mar walba ku soo dhawaada company-geena Forever Living Product